هو يدي دشي معاني ذا شرفت الله ولا عاي ولا إنكار وفقش بالي قلت الماما لكن هو يشرف الله دشي الحمد لله kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad adduunka joogtaan iyo waqti walba oo daawanaysaan halkani waa xaqiijinta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar sidoo kale gambaleelka furasi ay ku soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo galino haddii aad saaxiib nala tahayna waad muuqaalkan daawanaysidna like saar waxa xalay ku geeriyooday magaalada Helsinki ee dalka Finland Cabdirashiid Cali Yuusuf oo ahaa laga roone Soomaali ah oo ku nool dalka Finland ninkan ayaa waxa uu caan ka ahaa baraha bulshada waxa uu soo duubi jiray muuqaalo aan indhaha u roonayn isagoo iska dhigi jiray haweeney ama qof dumar ah Cabdirashiid ayaa waxa uu kamid ahaa xirta Fuad Blue Makeup oo isaguna ahaa nin laga roone ah oo ku nool dalka Finland warkan ah inuu dhintay ayaa waxa bartiisa Facebook ku xaqiijiyay Shaakir Ciise oo kamid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada waxaana uu yiri sida tan qofkan oo baraha bulshada Soomaalidu ka daawan jirtay oo nin ahaan u dhashay markii dambana naagis ka dhigay ayaa ku geeriyooday Finland coronavirus ayuuna u dhintay sida laga soo sheegayo diinta islaamku siday qabto lama oran karo Allah u naxariisto haddaba dadkii boostigaas arkay ayaa siyaabo kala duwan fikirkooda uga dhiibtay walow dadka habaaraya ayaa u badnaayeen haddaba daawadayaal cudurkan dunida gelgelay ayaanu aabayeelin yar iyo weynba waxa uu dilay dad caan ka ah dunida sida siyaasiyiin ganacsato jilayaal iyo fanaaniin geerida ninkan ayaana noqotay mid farxad gelisay Soomaali badan oo ka xumaan jirtay ficiladii wuxuushnimada lahaa ee uu sameyn jiray ninkan waxaana laga yaabaa in helkiisa ay ku farxaan geeridiisa maadaama ninkan ay markii horeba ku khasaareen oo uu noqday wasalad xaraan ah ugu dambeyntii haddaanu nahay bahda xaqiijinta wararka waxaanu leenahay in nabad sharaf bikala shadiid